Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay aagga deegaanada Baryabaal ee gobolka Hiiraan kaasi oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo dhinac ah iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalkani ayaa yimid kadib markii dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar kula jarmaadeen fariismaha ciidamada iskaashanaya ee ku lahaayeen agagaarka deegaanada Baryabaal iyo Aboore oo hoostaga degmada Buuliburde ee gobolka Hiiraan. Dagaalkani oo ahaa mid xoogan ayaa dowladda sheegtay in ay ka gaartay guulo hor leh iyadoo ay sheegtay in ciidamada qaranka iyo shacabka hubeysan ee halkaasi ay ku laayeen shabaabkii weerarka soo qaaday. Dowladda ayaa sheegtay in dagaalkani ay ciidamada Al-Shabaab ugu soo furteen hub iyo gaadiid dagaal halka ay ku laayeen tiro badan oo xubnihii soo weeraray ah. Ciidamada ayaa waa berigii hore ee saaka fashiliyay weerar nafilcaari ah oo qabaariigta kusoo qaaday goobaha saaka lagu laayay, waxaana weli dhulka hawdka ah ee dhinaca jiinka webiga Shabeelle ka socda baacsiga farxadkii qabaariigta ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda federaalka. Dhinaca kale, saraakiisha hogaaminaysay howlgalka ka socda Hiiraan ee lagu jibiyay shabaab ayaa warbaahinta u sheegay in goordhow ay bulshada la wadaagi doonaan faahfaahin sida loo fashiliyay dhagartii kooxdaasi. Sidoo kale waxa ay sheegeen in ay soo bandhigi doonaan khasaaraha rasmiga ee ka gaarsiiyeen kooxdaasi. Si kastaba ha ahaatee, goobihii saaka dagaalka ka dhacay ayaa lagu soo waramayaa inay haatan ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo si buuxda gacanta ugu hayo. Zamzam Maxamuud, Home Public Media, magaalada Nairobi.